السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لانتي بصاحبة قالقا نوغو حران آديات بانديسو دوينينا ميلكستا دونيدا دافئة ذاكا سوغتيهين كسو دوادا وراركان مانتي دي هاينو إذوكو آديادو ماهتان صاحبة يادا قالقا sidoo kale waxaan ka codsanaynaa saaxiibada qaaliga ah ee nagu xiran inay kanaalka ku soo biiraan waxyaabo badan ay ka faa'iidi doonaan insha Allah bidmillaahi kariim. maanta barnaamijkan ka hadli doono waxaan kaga hadli doonaa wariyaha caanka Cabdimaalig Muuse Coldoon. sideen hore u wada ogeynba wariyaha caanka ee magaciisa lagu magacaabo Cabdimaalig Muuse Coldoon wariyahaas oo ahaa qof aan wariye kaliya ahayn oo ahaa qof bulshada caawiya markastana bulshada beelahdooda daboola iyo dadka masaakiinta ayaan awoodeynin inay waxyaabo badan ay haday dhakhtar noqoto iyo haday caafimaad noqotoba aanay waxba ka qabsan karin hadaba dadkaas uu garab istaagi jiray amba wuxuu qaban jiray amba dadka masaakiinta uu caawin jiray wariyaha caanka ah ee Cabdimaalig Muuse Coldoon wariyahaas oo ku xiran caasimadda Hargeysa iyadoo wax alaala wax lagu haysto oon la garanaynin wariyahaas oo muddo aad iyo aad u dheer ku xiran magaalada Hargeysa kuna cadilan jirdid iyo loogu geystay dhibaatooyin waxa aad iyo aad uga xanaaqay wariyaha ku cadilan magaalada Hargeysa fanaanka caanka ee magaciisa lagu magacaabo Maxamed Saciid BK fanaankaas oo ah fanaan aad iyo aad u maskax badan ahna qofka kaliya noqon karaya wax garadka bulshada fanaankaas oo ka xanaaqay arinkaas uu ku xiran yahay Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaan idin soo deenaynaa daawadayaal nala daawada muuqaalkaas yar abigo codsi baan hawada marsanaya caawa waayo waa dhowr ciidood baa iskalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi waxaan cod dheer kaga codsanayaa nin ay bulshadu jeceshahay oo xiliyadan xanuunka xabsiga ku jira oo la yiraahdo Cabdimaalig Muuse Coldoon madaxweyne ninka inaad cafido ayaan aad u codsan lahaa iyo maxaabiista xiran ee aan kiiska adag ku xirnayn inuu sii daayo Cabdimaalig aad baan u codsan lahaa ma sha Allah waayo waa la tabay dhul badan oo waqtigan maanta taagan yahay wax ka qaban jiray waa dadka dar Ilaahay u shaqeeyay madaxweyne ninka labada ciidood ee iskalay ee dhinmay iyo farxadda ciidka iyo xanuunka dhibaatada badan leh dartii ninka nagu cafi waad soo wada aragtay maan u malaynayaa kulli muuqaalka uu kaga hadlay Maxamed Saciid BK isagoo codsi ballaaran u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi inuu iska sii daayo wariyaha amba caawiyaha bulshada caawiya Cabdimaalig Muuse Coldoon idinku aad iyo aad baad maasantiin asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh waxaan ka codsanayaa inaad u soo ducaysiin ducadana ku soo kaalmaysiin walaalkeena cadilan ee ku cadilan magaalada Hargeysa waxa laalo wax lagu haysta aynaan garanaynin marka fadlan waxaad leeyahay u soo duceeya